Waan ognahay waxaa lagu guda jiraa xilligii iskuulada iyo jaamacadaha. Qofkeenana wuxuu jecel yahay in uu ka faa'iidaysto waqtigiisa ama guud ahaanba inuu xakameeyo nafsadiisa. Balse waxaa jira hal shay kaasoo ka luminaya waqtigiisa, kaasoo ah taleefanka. Haddaba sideen ugu faa'iidaysan karnaa taleefankeena? Sideen ugu dhigi karnaa taleefankeena mid noo sababa guul beddelkii uu noo sababi lahaa guul darro? Haddaba ku soo dhawaada muuqaalka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Ku soo dhawow barnaamijka. Taleefanku waxaan ka dhigi karnaa mid aan wax ka dheefno ama mid aan ka dhaxalno dhibaato. Haddaba labaduba gacanteena ayay ku jiraan. Haddaba sideen ugu faa'iidaysan karnaa taleefankeena sida ugu fiican? Haddaba ii oggolow inaan kuu soo gudbiyo tallaabooyinkaas oo aad adiga taleefankaada ugu faa'iidaysan kartid oona waqtigaada ku xakameyn kartid. Haddii aad waqtigaaga xakameysidna waxaad xakameysay noloshaada oo dhan. Qodobka koowaad, xadid waxaad rabtid. Caalamkan internetka waa caalam aad iyo aad u baaxad weyn oo aanan dhammaad lahaynin. Haddii aad isku dhex daysid nafsadaada ama aadan ogeynin waxa aad doonaysid, waad ku dhex lumaysaa. Haddii aad ku dhex luntidna waxaad luminaysaa waqtigaaga. Haddii aad waqtigaaga lumsidna waxaad luminaysaa noloshaada. Haddaba adiga waxaa lagaga baahan yahay inaad horta xadidid waxaad rabtid adiga. Tusaale, anigu waxaan doonayaa barnaamijyo iga caawinaya waxbarashada, hadafkayga iyo hankaygana sare u qaadaya. Ama waxaan doonayaa barnaamijyo wax ii soo kordhinaya, ha ahaada taariikh ama barashada luqad cusub. U fiirso, markaad adiga YouTube-ka isticmaalaysid, waxay isticmaalaan xeelado qaas u ah. Tusaale yaran ku siiyo, markaad channel gashid oo aad heeso daawanaysid, tusaale kale heestan ayaad daawatay, waad dhamaysatay, hoos ayay kuu soo dhigayaan heestaas hees la mid ah, si ay adiga maanta oo dhan kuu madadaaliyaan ee waqtigaadan ay u lumiyaan. Haddaba adiga sideed ku garanaysaa in muuqaalkan adiga uusan faa'iido kuu lahaynin? Waxaad ku garanaysaa markaad muuqaalka daawatid oo aad dhamaysatid, waxaa kuu soo bixi doonta jawaab ah waxba. Midaas oo caddeyn u ah maanta oo dhan waxaad ku lumisay waqtigaada shay aan faa'iido kuu lahaynin. Haddaba waa inaad adiga waqtigaada ka faa'iidaysataa oona xadidaa waxa aad doonaysid ama hadafkaad u leedahay. Tusaale, aniga YouTube waxaan u galayaa barnaamijyo ii khaas ah sidaan horey u soo sheegaba. Horta ka faa'iidaysa waqtigaaga. Markasta YouTube wuxuu u taagan yahay inaad maanta oo dhan daawatid muuqaaladiisa. Kama daalaya inuu adiga kuu soo bandhiga muuqaala kuwa horaa la mid ahaynin, yaan idinka hilmaamin. YouTube-ka wuxuu leeyahay dhinac wanaagsan iyo dhinac xunba. Haddaba hadduu ku arko adigoo isticmaalaysid dhanka wanaagsan, wuxuu kuu wadayaa dhanka wanaagsan. Balse hadduu kuu arko inaad u badan tahay dhanka xun, wuxuu kuu wadayaa dhanka xun. Haddaba waa inaad u jeesataa markasta dhanka wanaagsan si aad adigana ugu faa'iidaysatid YouTube-ka. YouTube-ka waxaa yaala aqoon aad iyo aad u fara badan oo adiga aad ka faa'iidaysan kartid. Balse waxaad moodaa dhalinyarada qaarkood inay u badan yihiin dhanka madadaalada, midaasoo sabab u ah in uu qofka garaadkiisa iyo caqligiisa ay hooseeyaan. Waxaan hubaa haddii aad xadidid waxa aad rabtid, inaad waqtigaaga ilaalin doontid, kana faa'iidaysan doontid, aana daawan doontid barnaamijyada fiican. Haddaba iska delete gareey oo iska masax barnaamijyada aan wax kuu soo kordhihaynin, una tag barnaamijyada adiga wax kuu soo kordhihayo, mustaqbalkaada iyo waxbarashadaadana sare u qaadaya, si aad adiga waqtigaada ugu faa'iidaysatid. Ogow, shayga ugu muhiimsan ee bini'aadamku u haysto waa waqtiga. Waa qofka waqtigiisa ka faa'iidaystana wuxuu noqdaa qofka markasta guuleysto. Balse haddii aad waqtigaada ka faa'iidaysanin, adiga ayaa shalayn doono, sababtoo ah maanta hadday tagto kuma soo laabanayso oo waxaa imaan doona maalin cusub. Sanad hadduu taga ma soo laabto ilaa oo imaadaa sanad cusub. Qodobka labaad, ha u ogolaanin taleefanka inuu kaa xado nafsadaada. Nasiib darro waxaa jira dad ka dhigtay
howshooda oo dhan taleefanka. Haddaba adigu waxaa lagaaga baahan yahay inaad istaagtid ood isweydiisid, anigu maxaa la igu talagalay? Adigu waxaa lagugu talagalay waxyaabo aad iyo aad u waaweyn. Waxaa kugu xiriiro cibaadooyinkaaga, xiriirka aad la leedahay Allah subxaanahu wa tacaala, xiriirka aad la leedahay dadka kugu dhow, qaraabadaada, hooyo, aabbo iyo dhammaan familka oo dhan. Haddaba adigu waxaa tahay qof leh qorshooyin, himilooyin iyo mustaqbal iyo waxbarasho iyo mustaqbal wanaagsan rajeynaya. Haddaba ha u ogolaanin in aaladan yar aad waqtigaaga oo dhan aad ku lumisid. Haddaba ha u ogolaanin taleefanka inuu kaa xado nafsadaada oo dhan. Haddaba qodobadan kuu soo sheegay waa inaad ku dabaqdaa noloshaada oo dhan si aad hadhowda ugu faa'iidaysid waqtigaada oo dhan. Qodobadayna halkaas ayay ku ekaayeen. Haddaba aniga kuma lihi taleefanka oo dhan iska jooji, balse waxaan ku leeyahay isku day inaad taleefanka aad xakamayso uusan kaa xadin nafsadaada oo dhan. Sababtoo ah haddii aad taleefanka aad iyo aad u badsatid, wuxuu leeyahay caafimaad darro iyo waqti lumisba. Faa'iido darana wuu leeyahay, faa'iidana wuu leeyahay taleefanka sidaan horay u soo sheegnay. Haddaba waxaan rajeyn doonaa inaad muuqaalkan wax uun ka faa'iiday. Waan ogahay maalmahan oo dhan janalkan wax aan la soo dhigin, balse hadda laga bilaabo muuqaaladeena si toos ayaynu u socon doonaan. Balse arrin yar ayaan rabaa inaan idin ogeysiiyo. Waxaa jira janaalo ay ku qoran tahay aqoonsida janaal iyo aqoonside, balse sida ila muuqato waa janaala aan soo dhigin muuqaalo faa'iido aad iyo aad u leh. Waxaan rajeynayaa inaad fahamtay janalka saxda aqoonsida. Waad dareemi kartaa loogada ii saaran. Waxaan hadda laga bilaabo si joogta u soo dhigi doonaa muuqaalo waxtar leh iyo la yaab iyo intaba iskugu jiro. Fadlan janalka rukumo oo subscribe dheh, lana wadaag asxaabta ugu yaraan 1 qof iyo 2 qof ba haddaad gaarsiin kartid. Waad ku mahadsantahay.